dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay soo gabagabaysay qiimeyn ay ku sameeyeen madaarka iyo sidoo kale dekedda magaalada Berbera oo dhawaan ciidamadoodu ay booqdeen si bisha dambe ee February ay uga sameeyaan dhoolatus military. war ka soo baxay taliska ciidamada howlgallada gaarka ah ee Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu sheegay in ciidamada isku dhafka ah ee geeska Afrika ee Mareykanku ay soo gabagabeeyeen qiimeynta ay ku sameeyeen magaalada Berbera si dhoolatuskan ay u sameeyaan. warka ayaa u dhignaa ciidamada isku dhafka ah ee Mareykanka ee geeska Afrika waxay soo gabagabeeyeen qiimeynta ay ku sameeyeen dekedda Berbera taasoo ah meelaha loo doortay in dhoolatuska military uu ka dhaco. waxaa jiri doona 20 wadan oo Afrikaan ah oo ka qayb qaadan doona dhoolatuska oo dhici doona bisha February. ilaa hadda Somaliland iyo sidoo kale talisyada ciidamada Somaliland kamay hadal dhoolatuska ay dowladda Mareykanku 2 toddobaad ee la soo dhaafay ay sheegaysay inay ka sameynayso magaalada xeebta dhacda ee Berbera ee Somaliland. dadka wax falanqeeya waxay ku boorinayaan xukuumadda Somaliland in danaha Mareykanka ee gobolka ay Somaliland ka faa'iideysato isla markaana qadiyadeeda iyo danaha kala dhexmarsato maadaama ilaa hadda ay Washington ku taagan tahay siyaasadda ah hal dal oo Soomaaliya ah taas oo mar walba ay si aan gabasho lahayn u sheegaan.